Netherland way sii xirnaan doontaa faafidda cudurka corona wax yar ayuu hoos u sii dhacayaa taasi waxay ka dhigan tahay in xirnaashiyaha waddanku saameyn uu yeeshay si hoos u dhaca uu u sii socdo waxaan ku jiri doonnaa xirnaashiyaha si kastaba ilaa 9 bisha February ee sanadkan haddaad isku aragto xanuun ku jir karantiil gurigaaga ha qaabilin marti isna baar ku shaqee gurigaaga haddaad awooddo badi dhaqidda ama mayridda gacmahaaga u jirso dadka kale 1 mitir iyo bar ku qufac ama ku hindis suxulkaaga ka fogow goobaha dadku ay ku badan yihiin xiro maaskarada afka iyo sanka goobaha ay qasabka tahay guriga ugu badnaan 2 qof ayaa guriga kugu imaan kara maalintii marka laga reebo carruurta ilaa 12 jirka ah kooxaha gudaha iyo bannaanka ugu badnaan 2 qof ama shakhsiyaad hal guri wada degan ayaa la ogol yahay goobaha bulshada sida madaxafyada shineemooyinka tiyaatarada beeraha xayawaanka maktabadaha goobaha dabaasha iyo goobaha madadaalada way xirnaan doonaan goobaha cuntada iyo madadaalada maqaayadaha iyo baararka cuntada waa la xiray sidoo kale maqaayadaha hoteelada oo aan laga reebin adeega qolka lagu keenayo maqaayadaha cunto waad ka dalban kartaa abaabul xaflad ama madadaalo lama ogola dukaamada iyo adeega dukaamada aan daruuriga ahayn way xirnaan doonaan dukaamada daruuriga ah sida dukaamada cuntada farmashiyaasha kaalimaha shidaalka way furan yihiin wixii ka dambeeya 8 fiidnimo khamri lama iibin karo shaqooyinka qasabka ay tahay in dadku ay istaabtaan gudashada shaqooyinka qasabka ah in dad kale ay taabtaan qof kale sida timajaraha iyo qurxinta samayntooda waa mamnuuc ciyaaraha jimicsiga bannaanka keliya ayaa la ogol yahay ugu badnaan 2 qof idinkoo isku jirsanaya 1 mitir iyo bar marka laga reebo carruurta ilaa iyo 17 jirka ah iyo ciyaartooyda heerka sare ka ciyaara goobaha dusha ka dadan ee lagu ciyaaro ama lagu jimicsado way xirnaan doonaan tartamada iyo ciyaaraha kooxaha lama ogola inta aan ka ahayn dadka heerka sare ka ciyaara gaadiidka iyo safarka joog inta badan gurigaaga raac gaadiidka dadweynaha keliya haddii ay laga maarmaan tahay ha u safrin waddanka dibaddiisa hana goosan tigidh inta laga gaarayo 31 bisha Maarso waxbarashada iyo xanaanada carruurta waxbarashada dugsiyada hoose dugsiyada sare jaamacadaha iyo koorsooyinka kale oo dhan waxaa lagu dhaganayaa aaladda internetka online-ka marka laga reebo qaadista imtixaanaadka casharada practicada ah iyo waxbarashada ardayda jilicsan ama nugul xanaanada carruurta way xirnaan doonaan keliya carruurta waalidiinta haya shaqooyinka aan laga maarmin iyo carruurta jilicsan ama nugul ee ku jira marxalad adag ayaa loo ogol yahay talaabooyinkani waxay soconayaan ilaa 7 bisha Febraayo ee sanadkan gadaal ayaa laga go'aamin doonaa in dugsiyada hoose iyo xanaanada carruurta laga bilaabo 25 bishan la furi karo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan barnaamijkan waxaa ka shaqeeyay soona turjumay shakhsiyaad iskooda isku xilqaamay sida ka muuqata qoraalka shaashadda waxaana idii codeeyay anigoo ah Maxamed Cabdi waad ku mahadsantihiin inaad nala socotaan ballanteenu waa inaan taxadarno oo aan raacno talaabooyinka dawladdu ay soo saartay nabadgelyo